Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. Kulanti wacan oo wanaagsan. Barnaamijkeennan maanta waxaynu wax kaga soo qaadan doonaa waxyaabaha keena ilowshiyaha amba hilmaamka ama inaad waxba xafidi kari weydo. Ilowshiyaha ama hilmaamka waa ciladay aad u sheegtaan dhalinyarada sanadkan. Hilmaamka waxaa keeni kara waxyaabo badan oo cudurku ka mid yahay. Hilmaamku wuxuu noqon karaa wax iska caadiya oo muddo gaabanna hayn kara qofka iyadoo uu ka iman karo xaaladda uu ku sugan yahay. Waxaynu wax ka soo qaadan doonaa 7 arrimood oo keena ilowshiyaha ama hilmaamka. Hurdo yaraanta. Maskaxda bini'aadamku waxay leedahay 2 kayd oo kala ah mid ku meel gaadh ah iyo mid rasmi ah. Wax kasta waxa la geeyaa kaydka ku meel gaadhka ah inta uu qofku soo jeedo. Marka la seexdo, wixii loo baahnaa ayaa loo gudbiyaa kaydka rasmiga ah. Haddii aan loo helin muddo ku filan, waxaa dhacaysa in la haleeli waayo kaydkii rasmiga ahaa, macluumaadkiina ay si sahlan u lumaan. Dhafarka iyo hurdo la'aantu waxay keenaan xusuus la'aan iyo waxqabad la'aan. Maandooriyaasha sida khamriga waxay ugu horreeyaan waxyaabaha xusuus yarida iyo hilmaamka keena. Walwalka. Dadka inta badan la kulma diiqada fikirka iyo walwalka badani waa kuwa ugu tirada badan guud ahaan dadka la kulma khalkhalka maskaxda. Waa marka la barbar dhigo dadka inta badan xaaladooda nafsiga ay caadi tahay. Waxay khubarada caafimaadku sheegeen in dadka diiqada iyo walwalka ku bataan ay khalkhalka maskaxda iyo walwalku ka badan yahay 40 laab ay uga dhow yihiin dadka caadiga ah. Walwalku waa sababta ugu badan ee dhalinyarada aan balwadda lahayn u keena hilmaamka amba ilowshiyaha. Dhalinyaradu waxay dareemaan marka imtixaanku soo dhow yahay inay waxba xafidi karin. Tan oo kale waa walwalka uu ku hayo imtixaanka iyo cabsida ay ka qabaan ayaa keenaysa inay waxba xafidi kari waayaan. Daawooyinka qaar waxaa laga qaadaa hilmaam la'aan. Waxaa habboon inaad dhakhtarkaada kala tashato daawooyinka aad qaadanaysid inay saameyn kugu yeelan karaan. Waxaa ka mid ah daawooyinka dhimirka, hurdada, daawada dhiig-karka, kuwa gaaska, kuwa hargabka iyo kuwa sanboorka. Siigaysashadu waa arrin aad u xun. Dhalinyaro badan oo ay caado ka dhigteen. Waxaa laga dhaxlaa xafid la'aan iyo faham yari. Daawashada filimaanta jinsiga ah oo la joogteeyo waxay dhaawacaan xusuusta qofka, waxaana qofku isku arkaa hilmaam badan iyo dhugasho la'aan. Ilowshiyaha ku yimaada xaaladahan hore qofku waa uu ka bogsan karaa haddii uu joojiyo waxyaabaha dhibka ku haya, waana ku meel gaadh dhibaatada maskaxda gaadhaysa ilaa inta uu qofku waday dhibaatadaas, taasoo saameyn joogtaha ku yeelanaysa maskaxdaada. Hilmaamku waxau noqdaa cudurka markuu qofku la kulmo dhibaatada caafimaadka sida cudurrada Parkinson iyo Alzheimer. Ilowshiyaha waxa uu ku bilaabi karaa qofka dhibaato joog ah, qofka dhinaca maskaxda ka soo gaarta, amba dhibaatada xagga nafsiga ah. Haddaba sideebayn iskooga ilaalin karnaa ambaynu uga hortagi karnaa ilowshiyaha? Waxaan ilowshiyaha amba hilmaamka uga hortagi karnaa innagoo iska joojina waxyaabihii aynu soo xusnay oo dhan. Waad ku mahadsan tahay daawashadaada. Fadlan haddii aad ka heshay muuqaalkan, saar like. Sidoo kale ha iloobin inaad ka mid noqoto boqolaalka qof ee ku xidhan kanaalkeennan.